soonka dadkii hore say u soomi jireen diimaha hadda jira say u soomaan se ma jiraa soon ka duwan soonka aynu soonno amaba soon haddii aad maqashid aad la yaabaysid aynu ku bilowno soonka masiixiyada iyo yuhuudda waxaa la yidhaahdaa soonkoogu waa mid ay soomanaadaan 26 saacadood waxayna ka soomaan waxyaalahay muslimiintu ka soomaan oo kale waxaa kaloo la yidhaahdaa waxaa jira yuhuudda soon ay leeyihiin oo la mida soonkeena haddii aynu u tagno masiixiyiinta siday u soomaan way ka duwan tahay sidaynu u soonno waxay ka soomaan waxa dufanka leh ee hilibka iyo wixii la halmaala sidoo kale waxay cunaan markaasi fawaakihda khudrawaadka waxa khudaarta waxa cagaaran ayaabay cunaan waa soon ay wadaan muddo 40 cisho soonkooguna waa midka noocaas halkan maanta waxaan kugula wadaagayaa haddaba soonka la soomo kuwa ugu la yaabka badan leh adduunka laga soomo soonka koobaad waxaa la yidhaahdaa siyaamu sunta ama soonka aamusnaanta waana soon alle inoogu tilmaamay kitaabkiisa markii uu la hadlayay maryama uu lahaa innii nadartu liraxmaani sawman falan ukallima alyawma insiya waa soom ay yuhuuddu soomaan ama diinta yuhuudda lagu aqaano dhexdeeda waxaa jira soon ka darankaa waxaa la yidhaahdaa soom canilcamal shaqadaa laga sooma oo yuhuudda qaar ka mid a ayaaba waxay aaminsan yihiin soomanka qaar 2 cishay soomaan waxay ka soomaan sidoo kale in ay markaasi shaqeeyaan ama shaqo la qabto soon waxaa jira laga soomo cuntooyinka qaar sidii aynu masiixiyada usoo tilmaamnay markaasi waxay ka soomaan sida hilibka digaaga kalluunka caanaha waxa kaloo la cunaa markaasi wixii cagaaran ama aanan wadan wax dufana soonka ku xiga ka waxa la yiraahdaa as-sawm can nadaafa waxa laga soomayaa nadaafada iyo qofku inuu iska dhigo qof nadiif ah oo iska meedho waa soom ay soomaan qaar yuhuudda iyaguna ka mid ah waxay ka soomayaan in ay xataa cadaydaan wejiga meedhaan waxyaalaha ugu yaryar ee nadaafada 2 cisho oo isku dhameystiran ayaa laga soomanaanaya cuntada iyo waxyaalaha kale sidoo kale waxa laga soomanaanaya in la isnadiifiyo haddaba soonka ugu la yaabka badan ee arkay wuxuu ahaa as-sawm hatta al-mawt qofku wuxuu soomanaanaya ilaa intuu ka dhimanayo cajiib waxaa jira diin ka mid ah diyaanaadka markaasi buuriska ama hinduuska qaar ka mid ah oo wadamada Asia laga isticmaalo ayaa waxay aaminsan yihiin in qofku soomanaado ilaa intuu dhimanayo heer waxa la sheegayaa sanawiyan ay ugu dhintaan 200 oo qof wadanka Hindiya xataa waxaa jira markaasi hay'ado iyo jamciyaad ku dooda in waxan aqli darrada umada laga qabto laga joojiyo marka mid ka mid ah ayaa la weydiiyay lagu yiri waxan aad wadaan qofku intixaar muunan ahayn qofku isdilid meena caadi markaas uu yiri maaha balse waxa weeyaan waxan qofku inuu horumar iyo waxay ku tusinaysaa gaari geesinimo سبحانك يا عبد هذا الحمد لله الذي أنعمنا على هذا الإسلام إلهي بأنه قلنا معي مركزي إسلام كان صون أين صومنانا إنه مركزي أين أبال كيسي أجر كيس آخرية أدون بكون لينه إلهي نوحو ليه إنه لي وأنا أجزي به أنا صونك إسكاله أنا أقفك كأبال مرني حتى أبال كيسي لينه مشي إنه لينه بقريب weynida iyo xajmiga uu leeyahay daraadeed waxa fadliye ku sugan ee nabigu inoo sheegay wad kooda dharagsantiin aynu bishan ka faa'iideysano insha Allah. Assalamu alaykum.